sidaad u seexanaysaan buu nabigu leeyahay kaco ilaahay xasuusta saacada qiyaamada ba soo dhawey dadkii magaalada ku noolaa hadii nabi maxamed uu la dhaxmarayay erayadaas uu lahaa kaco ilaahay xasuusta suurtii baa dhici doonto qiyaamadii baa dhow oo malagii baa suurta afuufaya aakhirana qofka bini aadamka waxa uu ka baqa waa dunuubtiisa waa dambigaagina waa laga dhaafay buu rasuulku yiri marka Allah inoo dambi dhaafo qofku markuu dhintana dhimashada maxaa ku dhex jira su'aashii qabriga ku dhex jirta oo haddaad hindhisotana uu ku yiraahdo war xaggaad u jeeso corona jira la yidhi maxad منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وكيلها لها عيدا سانيغا أبورني يدون بان هدنا نقول عليني دونا مردا بنا يدا نقصو دحساري دونا با إلهي يري ملك إسرافيل عليه السلام مالك يلا أبوري إلى جوغدنا وحال يري لغاها انتو لك لبحي فورنكو بيقبوقو أفوفيين أفوق قشدي با يري وحاونا سوغيا إلهي أمر كيسا كليا بس وملك أحاديث تقاركود أي شيء يسلمدي ساحر رباب شمبرك حربت ألكا كدولة إلى إنتا كلا وحو الدولة يعتضبات سنضو قيلدي سو كليا أيا خلائق دورنا لو وضع ديمان اللي أرقق حيان وحاونا سوغا ياون إذن كإلهي قور ما لغو أورن دونا أفوف لأنه يساقنا مركزو فورنت أفوفي دونا ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون marka arraajifa waa tan hore weeyaan khalqiga oo dhan ka nixinaysa khalaa'iqdooda qulubtooda galgalaysa haddana waxa ku xigta buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam tee suurta labaadna waxa weeyaan waa tabacsiga qiyaamaha khalaa'iqda la soo wada bixi doonaan sidaad u seexanaysaan buu nabigu leeyahay kaco ilaahay xasuusta saacada qiyaamada ba soo dhawey jaa al-maut wa bima fihi ba nabigu yiri waxa kaloo yimiday geeridii dhimashadiina way timiday oo laba qiyaamo ayaa la sheegay qiyaamo weyn iyo qiyaamo yar qiyaamaha weyn waxa weeyaan waa saacada suurta weeyaan qiyaamaha yarna waxa weeyaan waa ajashiisa qof walba markay ku timaado qiyaamihiisa ba kacay marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo madiinatul munawwara jooga oo magaalada Madiinana asxaabu Muhammad oo dhan ay wada joogan hadii nabi Muhammad uu u baahday inuu dhex jawlayo ilaado dadoo kaco ilaahay xasuusta oo saacada qiyaamada iyo suurta iyo geerida iyo nolosha dambe aakhirada uu xasuusiyay hadii magaaladii Madiina zamankii nabiga dadkii muuminiinta ahaayeen ku noolaa ay mudaakaradaas iyo baraarujinta ay ka maarmi waayeen إنكو زمن كان ما أنت جوننا كورما أنت هنو باهنا مركز إن مرول بإلهي لنا حسوسيه زمن كان قفلة آيات بدن جهل آيات بدن معاصي آيات بدن فتنة آيات بدت يا السيان كآيات بطول مرول بإلهي بلغو عاسنيا zamankoogiina waxay ahayd magaalada Madiina magaalada dadka ku nool ay Ilaahay amarkiisa u wada hoggaansameen oo sunnadii nabi Maxamed ay ku wada dhaqmayaan sallallahu alayhi wasallam dadkii magaalada ku nool hadii nabi Maxamed uu la dhaxmarayay erayadaas uu lahaa kaco ilaahay xasuusta suurtii baa dhici doonto qiyaamadii baa dhow oo malagii baa suurta afuufaya oo haddana khalqiga oo dhan ba argagaxi doona haddana khalqiga oo dhan baa wada dhimani doona qofku markuu dhintana dhimashada maxaa ku dhex jira su'aashii qabriga ku dhex jirta noloshii qabriga ku jirta cadaabul qabrigii baa ka dambeeya haddana jidkii saraad baa ku xiga bankii qiyaamaha haddana loo soo bixi doonaa ilaahay baa la surtaagi doonaa taasaa markaa nabigeenu dadka ku baraarujinayay sallallahu alayhi wasallam saxaabiga Ubay ibn Ka'b baa hadloo yidhi yaa rasuul allah markaan ilaahay anigu aan baryaayo salligaaga haddaan ducadayda afar u qaybiyo qayb aan ka dhiga bal ka waran markaa buu nabigu waa khayr
haddaad ka ziyaadisaasa kaaga khayr badan buu nebigu ku yidhi haddaad ka ziyaadisana waa khayrun markaa buu yidhi ka waran haddii aan ka dhiga salligaaga kala badh oo ducadii aan ducaysanayen ilaahay aan baryaayey kala badh haddaan adiga kugu salliyana bal ka waran inta kalena anna xaajadeeda ilaahay aan weydiisto markaa buu nebigu yihi waa khayr haddaad ka sii ziyaadisana waa khayr buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam haddana markaa buu yihi ducadaydii markaan u qaybiyey 3 qaybood 2 qayboodna adigaan kugu sallin qaybna maaragtaane anigana baahideedan ilaahay u sheeganteeda ka waran markaa buu nebigu yihi waa khayr haddaad ka sii ziyaadisana waa khayrun baa nebigu yihi sal alla alay wasalam markaa buu yihi yaa rasuul allah haddii marba salligaagii haddii la badiyaba khayrun lasii dhexgalaayo baahidaydii dhannayd ee ilaahay u sheeganayey waxaan ku soo koobayaa buu yihi salligaagaba adiguma kugu sallinba markaa buu nebigu yihi idan tukfaa hamuka wayukfaru laka danbuka buu yihi haddaad aniga igu sallidid hamigaagi wixii adduunka aad muraad ka lahayd ee ku walwalgelinayeed ku haminaysay waad heshay dembigaagina waa lagu dhaafay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waa kii nebigu lahaa man shagalahu alqur'aanu can dikri ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام لك قرآن أخرسك كن مشغولة بريدي ذكري كم مشغولة قرآن كقراءة ديسة إلهي وكيلها كوا إبريا يوحان إياك آنسين وحكفل لبضم عن إساق السياب إلهي لكاس قرآن كوا آخرين يا صوما قرآن كوا آخرين يا باهدي سلقوا ضبولا يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام سلقي سيبوا بدي صوماها مراد كوا أدوية الله هاي ودنبا إلهي وضبولا يا حاجدين آيات ضبولي كرا إلهي با ضبولي كرا لكن تاسي يقين بأو باهنتا كالصوني إن يقين سنة الله باهنيا صحابة الرسول خبر كالنبي وشيغو يقين بأو قادنيين haddaad ducadaadii dhannayd halkaa intood iska dhigto salligayga unaad ku soo koobta buu nebigu ku yidhi wixii adduunkan had iyo jeer mar walba aad ku haminaysa inaad hesho waad hesho waa lagu siiyey buu nebigu ku yidhi aakhirana qofka bini aadamka waxuu ka baqaa waa dunuubtiisa waa dembigaagina waa lagaa dhaafay buu rasuulku yidhi marka allah inoo dembi dhaafo waa labada shay ee qofku adduunka uu dhib leeyahay adduunkana wuxuu u leeyahay hami aakhirana wuxuu qofku maaragtaana uu leeyahay waa dembi آخره waxa kaliya qofku ka baqa waa dambigiisa adduunkana qofku wuxuu qalbigiisa ku hayaa xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa ayuu raadinayaa dib haysata dibtaana cid ka fayduu rabaa qofkaasi nin walba dib baa haysata maanta nin walba xaajo ayuu leeyahay nin la baahi ma anigu baahi ii gaar aan leeyahay kan baahi gaar uu leeyahay adu baahi gaar aan leedahay laakiin ka baahida nin walba ku jirta oge ka warhaya waayo إلهي بابا هذا كو دبولي مركز marka ilaahay taacadiisa waxaan u baahanahay inaan ku qaadano yaqiin waana farqiga u dhaxaya muslimiinta maanta adduunyada joogta baa la yiri iyo muslimiinta ahdiga nabiga adduunka joogaysay dabalu fiirso xanuunkan imika adduunka ku fiday ee la sheegayo ma jirabe waduu jirana wala arki lahabe waad aragteeno sidii dadka loogu celcelinayay ayaan gacmaheeni dhaqaynaa afkiina aan xidhanay qof walba wuxuu ku jira digtooni buu ku jira wax jirana ma jiraan rasuulama maxaa keenay baa leeyahay waa hadal kan badan ee dhagteena ku dhacdhacaya mar walba lugaha gacmaha maydha markaad hindhisaysaan afka marada saarta 2 mitir dadku ha kala dheeraadaan meelaha zaxmada buuqa inaan la gelin telefoonadii baa lagu bologarameeyay tikraar ka badan hadalka lagu celceliyay wuxuu keenay qofkii isagoo waxba qabin beenuu shakiyaba oo haddaad hindhisootana uu ku yiraahdo war xaggaada u jeeso corona jira la yidhi maxad mid baa awal ba sawirka hindhisoon jiray ma buu yidhi ma ima kees bedeshay hindhisadu ma fahamta kalsoonida bini aadamku waa cajiib wixii lagu celceliyo qalbiga uu galaya asxaabta rasuulka radiyallahu anhum iyo dadkii wanaagsanaa qalbigooda waxa ka dhaadhacday laa ilaaha illa allah
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم warka ilaahay ayaga ku socday iyo warka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dadna dad waxay noqdeen warka ilaahay warka nabiga mooyana war kale ba uusan galeynba ma bagala war kale ba ayaga Abu Darda miskiidka isagoo fadhiyaan inuu yimid oo waran qalkaaga dabba in yaru jiray ka gaad ma gubanay buu ka yiri hadana ku kala u yimid Abu Darda ma tiid ha aqalkaaga dabba in yaru jiray ka gaad ma gubanayo ku saddexaad ba u yimid sidii asilay ki afraad ba u yimid oo yiri dabkii markuu aqalkaaga u dhawaaday iska baqtiyay Abu Darda wuxuu ku jawaabay ma taqaanaa قد علمت أن الله لم يكن ليفعل ذلك بيدي وأنا قاعد إنه لا يقل كيك وضبك كيك قبض سنين ضبك أقل كيك إنه سنجارين بأنه قابل عنه مركز سيد هذين لبض هذين هذا كل حد يسوع كيف الله يا بدن بيكون هذين مكي عدتك كل حيد أقل كيك مجبني إسكن نقطع مسكدم بي الله ده هاي وأنا قاعد إلهي أقل كيك إنه سندبك كيك قبض سنين waxaan sidaa u yiri baan sheegi buu yiri nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wassalaam ma ka maqlay isaga oo leh gabalku markuu dhaco iyo marka waagu uu bariyo ninka ducada akhrista allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkalt wa anta rabbul arshil karim ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وحن كم مغلب لدعاء النبي محمد أو يرينك قلبت فينا مريد هذا صباح دينا مريد هذا حدو قلب دعاء يري إلى واقو كبر يايو مصيبكم من عذاب رسولك يري hadduu waagu markuu bariyo uu yiraahdo ilaa uu ka galabaysanay masiiba ma soo gaadho bal fiirso ducadaasi maanta innaka waa noogu qoran tahay kutubta iyo ducooyin fara badan oo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam laga wariyay laakiin kalsoonida ayagu ay qabeen iyo kalsoonida maanta innaka waan qabna ka warrama isku mid meeta kalsoonidu waa shay cajiib ah shayga qofka bini aadamku ictiqaadanaha ilaahay nafcigu u dhaxmariyaa baa leeyahay walow shaygaasi haba noqdo shay beenaba ha noqdee nin reer baadiya yaa magaalo soo galay oo bukooday oo dhakhtarka la geeyay xogaha kaniin baa la soo siiyay kaniinka xumadda iyo qandhada dadka reemigu daw afka laga isticmaalo ma yaqaanaan waxay yaqaanaan ay aqeedaysan yihiin wadaad u tago qardhaas u qoro qardhaas waa taqaanaan banu malayn xirsi waa tiraahdaa qardhaas dadna meelahan ku xidhaan oo iska bogsadaan marka kiniinkii la soo siiyay bacyar buu ku xidhay inuu isticmaalay baa la mooday maalintii dambe la wareysto lagu yiri war bal ma la naato dawadii ma qaadatay ها دودي إلهي ويقول شافيه بيودي وأضع عنا يبى لو ما أركنه عنا يا وحلا عنا أنا ما أركنه بعضي يريد يوحي كل جريبة مرة كل ضوبته حال كان أكو حدو إلهي ويقول شافيه بيودي والله فيرسو يقينته عجيب قفك هدو شيء يقينه قاتب عليه ولو شيء سحب النقد شيء أصحين إلهي وكم تحامل منفعهم بإلهي يكون صودح قلين وحي بن آدمكو أي سمايين أيادتكم ما أنت كوكل سونيهين وحانو كوكل سوناوين ورك إلهي ورك النبي قلنوش هيغان صلى الله عليه وسلم نبا النبي قوي مدوي لحاليت ولا دبق اللعبة يقنيني الله قسيبك صح الله أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق لم يضرك بالنبي قولي حداد أورن الله يتكلمت داسي حلقات قلب أيستي أعوذ بكلمات الله تامات من شر انت أصلا حداد أورن الله يتبنى بيقول كويري كما برد بيان با أحبك كاما قادم با
khabarka nebi maxamed uu noo sheegayo calayhi salaatu wasalaam khabar la jarrabay maaha waa khabar yaqiiniya yaqiin waa maxay wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa halkan maanta ka liidanabay culimmadu leeyihiin waa kalsoonidaas sida kale alxamdulilah diintii maanta waa naqaanaa salaaddii waan tukanaynaa qur-aanka waan akhriyaynaa saxaabadu nebigu meel u diray reer bay dul tegeen markaa gaalo ah dacwaddii bay gaadhsiiyeenoo dacwaddii baa laga qaadan waayey markaasay weliba yidhaahdeen war islaami mayno waa hagaaga na marti qaadan ni marti qaadi mayno isku diinba manina maxaan niga marti qaadnaa duqii reerka ugu weynaaba habeenkii mas baa qaniina balaayaa cuntay markaasaa geed iyo dawo iyo wax walba waa loo raadiyey kolkii dawo loo waaye laga quustay bay is yidhaahdeen niman yahow nimankii xalaytoola martiqaadka aan u diidnay muslimiinta ahaa waa kuwa weli meeshii degane bilow yaka dawo laga hel markaasaa loo yimid odaygii noogu da'da weynaa xanuun baan waxbaa balaaya naga cuntay oo waa sankaraadoo naftii baa ka dhacaysay dawo ma haysaa amiirka jamaacadda watay baa ku yidhi haa dawo annaka hayna buu yidhi laakiin dawadaa may nima siinayno ilaa ujuuro aad keentaan asxaabtii way isqabsadeen dawadeed haysaa wuxuu yidhi umma alqur'aan baan haynaa buu yidhi suuratu alfaatixaan hayaa buu yidhi iyadaa ku filan buu yidhi de in lacag lagii xoola lagu qaato may bannaan tahay haa soo iyo kuwa martiqaadkii noomay diidin way noo bannaan tahay buu yidhi may ma bannaano iska daaya khilaafka daaya uu qaboojiyey odaygii baa la dulgeeyey suuraddii faatixaduu ku akhriyey uu iska kacay waxaa la yidhi ninka qur-aanka la dhaqaaqeen maxaa sugaysaa namari wax iga yaabiyey baa maanta ay helay tiri maxaad aragtay cumarkii aad ogeyd cadaawadda uu muslimiinta u qabo oo waxaan arkay maanta dabcay oo jalcay oo xataa noo duceeyey oo halkanuu kuugu yimid ahaa oo muxuu yidhi sidaasuu yidhi oo ma cumar binu khadaab inuu islaamaad damacsan tahay buu ka yidhi dameerka odayga khadaab baa islaamnimada uga dhowe cumar weligii islaami maayo dameerka rawayna mari buu ku yidhi yani istiqraab waa la fogaysanaya cumar islaamnimadiisa laakiin maalintii cumar islaamay islaamka nasri buu u noqday ogow ninka ay saxaabadu u arkayeen ninka ugu cadowsan gaalada ee dhibta ugu weyn muslimiinta u geysanaya wuxuu noqday ninka muslimiinta ugu naxariis badan buu noqday ninka muslimiinta ugu cadaalad fiican buu noqday ninka cahdigiisii cadaaladdu adduunyadoo dhan gaadhay buu noqday ninka iska daa bini aadan xaqooga intuu dhaafay inuu ilaaliyo ayuu odhan jiray faraska iyo dameerka ciraaq ku turanturoonaya dariiqii inaan u hagaajiyaan ka fikirayaa buu yidhi iska daa bini aadankii xaqii bini aadanka intuu daboolay ayuu odhan jiray faraska ciraaq ku turanturoodan anaa qiyaamaha lay weydiine sidaan jidka uu maraya aan ugu hagaajin lahayn ayaan ka fikirayaa buu yidhi webi baa soo fatahay markaasaa cumar loo sheego la yidhi webigii ay badan buu laayuu iyo dameero badan buu laayay uu ooyey cumar binu khadaab wuxuu yidhi qiyaamaha anaa lay weydiin buu yidhi xayawaanka webiga ku dhintay oo la odhan doonaa maxaad uga badbaadin weyday naxariista cumar qalbigiisa ku dhalatay eega boqorradii adduunyada haysanaya markii dowladahoogii laga adkaaday dhaqaalaha ay haysteen bay saxaabadu soo qaadeen madiinay keeneen iyadoo baqal lagu wado dahabkii iyo kuraasidii iyo taajkii marka cumar binu khadaab baa yidhi xoolaha intaa la eg ragga ka keenay ciraaq dhinaciiga shishe ee magaalada madiine iigu keenay iyagoon waxba ka qaadan raggaasi waa rag ammaano leh buu ka yidhi waa rag ammaano leh markaa buu yidhi yaa amiira almu'miniin iyaka maaha buu yidhi waa adiga buu yidhi adigaa hantidii ummadda ka dhowrsoonaaday iyakuna markaasay hantidii ummadda iska ilaaliyeen buu ka yidhi hantida ummadda adigu haddaad daaqi lahayd iyakuna way daaqi lahaayeen buu ka yidhi way daaqi lahaayeen dadkaas nebi maxamed calayh salaatu wasalaam dadaalkiisii raggaasaa ku soo baxay iimaan leh oo diin leh oo taqwo leh inaan nafteenna dhisnoon ummadda dhisna laynooga baahanya ka warrama dacwadda ka shaqeeya dacwadda u baxa ummadda xagga ilaahan ugu yeedhna waxay ka dhigan tahay dadka in laga shaqeeyo ayaa awlaaya mise dhulka in laga shaqeeyo
bal sheega imika dadka adduunyada joogo dhan waxay u dadaalayaan dhulka inay ka shaqeeyaan inay wadooyin hagaajiyaan inay dhakhtarro fiican helaan inay tacliim fiican helaan inay wadooyin fiican helaan inay dawlado fiican helaan in nidaam fiican ay helaan taasay u doonayaan waxaasoo dhan waxaa ka awlaysan in bani aadanka horta laga shaqeeyo oo bani aadanka la islaaxiyo bani aadankuna wax kale kuma islaaxaya bay culimmadu leeyihiin ilaa ummadda horta iimaanka laga dhisa mooyaane yaqiinta dee diyaar ma nahay insha allah yaa bal u diyaaray insha allah waqtigiisa inuu dadaalka diinta ku bixiyo naftiisana islaaxiyo oo ummadana soo islaaxiya u diyaaray insha allah dhahada insha allah si fiican u dhahada